إلهي ونحرسته ويلاش الصوماليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصوماليات مالك السجوكتان ولكن عبد الحكيم عثمان نور شيخ صومالي حرت شيخة مينيابوليس مينيسودا. أنت مقعي موقعي تقانبا وحن السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقيموا واعتدلوا. مر والبا waxaan jeclahay inaan community u soo gudbiyo wixii dib iyo dheef soo kordha in wararka lagu kala qaato meeshaydaan wixii xaalad soo kordha xalay saan idiin soo sheegnay markii ugu horeysay waxa محمد آدم شيخ نورين ويلكي سجلي وذاك الشيخ نورين سانجلي وذاك سام حالة إذن صار شيخنا ويل صوماليات أو تراك درايفر أيه واحد يقول لي من دي مقالة قبل كفرجينيا وحنا ندي لقولين كعدان كها وحالة وضع كأب وكعصنت هاي إسلامات من السحالة إنه واحد ندي للبوي صوماليات قبل كنور اللي هذا ويسكنسا مركا واحد يلصق حريري صد حلق خضر أو تراك درايفر كان عصام صوماليات أنا نسقونين لكن أنا هاي فيسبوك فريندز سيدا درتيد waxa uu sheegay inay meel ka wada shaqeynayeen aadna isku yaqaaneen wiilasha marka insha Allah bidna Allah kariim sida wax u dhaceen waxa wacayaa khadar baan wacayaa oo idin warrami doono billahi tawfiiq خضر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مقليا إن شاء الله شعبك الصوماليات خضر لس وأول رمي كرتا وسيدا وركا. أبي صاحب ويسكنسن أيا حلي تشوقي مركا أمسون وذكرس مركا أمسون ساقص وضحنا ويل كمل ويسكنسن أو أمسون كتلا بايلوت iyo badro meel ilaa gas station wiilka iskugu imnay halkaas wax ka wada iibsanay wada sheekaysanay markaas uu yiri meeshaan joogayaa moog haye waan ku yiri meeshaan wada joogayaa markuu yiri haye ku yiri aan cabaar wada joognay waan tagay markaan saa uga tagay umba like waxay soo wacay wiil kale oo isaga meesha joogay oo anigii isaga mar aan caadi isku naqaano magaalada wada degnayn moog haye nin cadaana intuu daaqada u soo istaagay buu yiri waxba ku weydiinay markuu saa uu furayna uu dilay buu yiri moog haye wiilka markaa waa wiilka xalay baan markaas aragnayo Soomaali ahaan baan isku salaano wada aragtay isteed kala dadkii Soomaali aad aragtay dadku kaaga dhow yihiin moog ha marka wiilkii markaas wallahi aad ya baan uga naxay meesha ma aragtay walibana waa like bismillah waliba xalay magaalada Wisconsin dabaaldeg waxa jiray baabuur waaweyn oo 4x4 waaweyn oo dootraakooda qoraya xalay dhan magaalada soo ordayay moogtay haye haddana markii ka dambeysay haddana wiil kale lagu dilay meesha haye wiilka kalena xagee lagu dilay wiilka kalena meesha agaartayga lagu dilay wiilka kalena haye marka wallahi cabsi weeyaa wallahi waa wiil marka wiilkan kale Amazon buu ka shaqeynaya ma isagu ma wiilkan isaga wiilku wuxuu sheegay Amazon meesha maarta Amazon baa u dhawo meesha inta tareela laga kansalay buu guuri marka meesha ma iska seexanaya buu bari baa loo kala qaadaya buu guuri aan ahaanteed haye okay marka saasa marka wiilka meesha xalay baa meesha isku baranayo marka markii aad saragteen saacadu imisadii bay ahayd waxay ahayd Allahumma salli ala Muhammad wiilka xilligaas aragnay waxay ahayd markii anigu meesha waxaan joogay anigu 9 bay ahayd markaan meesha aan isku aragnay adiga 9 wax dhiman yahay marka goormaad maqashay geerida in la dilay wiilkii aad 9 saragteen ما إنك محاولة مرنويد بابا ويلي سوى يقول ويلكي ولد له حلا ويلكي على ماشي إن لا تاجنا مركي اللي دلي ويلك ما ويلك لا سعودي ما ويل أفكرنا إنه يمد شاور كوكلا يسوق موقتي هاي أصلا كانوا هاي أو أنتوا نسلم الله بدأ يقول شاور كان كسرنا قناة يا أنا أنت نصون تقوان تجي موقتي هاي مركا وقت تجي مركا أنا كسر تجي kii marka shawarka nagu soo maray waxa uu meeshan hurdayo booliska duuka intuu yidba ayaa wiilkii la dilay wiilkii Soomaaliga waa la qaaday buu yiri raggiina marka suu igu sheegay wiilku wuxuu waa la qabtay raggi dilay wiilka dilay waa la qabtay Soomaha
ها ولا قبطي مركبة ولا قبطي مركي لا قبطي حدنا عبارك بعد ويل بالقدرين أجرت مش marka idinku ma iska war haysaano ma leedin meela ku xiriidaan hadaad tiin taraag daraafalada horta cadaanku midda nagaga fiicayn anaka cadaanka iyo ajnabi haye markii nagaga fiicayn recording ba gaariga ugu dhagan oo highway-gi xiran meeshii dib ka dhacdo ay iskugu sheegaan mood ha annaku laakiin hadduu noogu dhagay macal waa iska fujinaay ma jeclin marka adigu hadda xagee ku sugan tahay saddex lahaan aniga anigu Wisconsin ayaa ka shaqeeya iyo Kentucky marka adigu ma istaagto meel safe ma tagtay Kentucky baan imika jooga oo ba loorkii ugu jira waaba la wada kansalayo caawiya habeen dababa caawa waa meesha maan joognaa anagu marka wax aqoona wiilasha magacyadooda labada wiil magacyadooda wax garanaya ma garanaysaa Wisconsin tii aan loorka u qaadayay meeshii Amazon baba la xiray bando laga dhigayba oo bando ba laga dhigay miya ha bando waa iyaga kansalay because tarawilintani Amazon bay ay ka shaqeynayeen ilaa intii area dhan waa ilaa maanta dhan wuxuu wiilka booliskiyo waxba joogayo waa laga kansalay marka waxa ma garan kartaa labada wiil magacyadooda ma la heli karaa ma laga heli karaa imika waa ku soo helaya wiilka baan ku soo heli karayaa oo macal permissionkiisa dhan ana ku soo sheegay wiilkan baan imika wacaya wiilkan baan ka soo gaanaya taas wuxuu ahaa saddexle khadar oo ah wiil Soomaaliyeed oo truck driver ah oo goob jooga ka had sidii wax u dhaceen inoo waramayay wiilashii Soomaaliyeed ee meesha lagu dilay Wisconsin ilaahay uu naxariisto ehladoodiina samri iimaan Allah ka wada siiyo wali wiilasha magacyadoodii lama aqoonsan laakiin waxa laga heli karaa Google-ka insha Allah wiilkan kale in wacanaana insha Allah inuu inoo sheego ayaa dhici karta كل الصوماليد ودد وده وأنا دد وده قرابة وسود يقانا إن شاء الله بإذن الله كريم والله هلا إله سبحانه وتعالى وحن قبر يا ويلش الصوماليات كعنتك حقدر الشيء إن الله الجنة كورابيو قيسس كدي أهلد ودين السمري إيمان كسر هون أهانتي ما تقيسس الصوماليات أيها قبل كودي وقرب كودي دعويان وهون أهانتي واتقرن كرتان ضد بدن بمصروفين أي وصوا مقنعين شقي كجيرين والدريمي كرتان مركا والله وأرين آدي آد وحنونه إلهي سبحانه وتعالى هو نحريستو ددك أي كبحين إلهي قلبي وده هو قبوجي ومدى الصوماليات وادو جيدان وحو نوير ويلك الصومالية تراك درايفر كاي ددك كله وحي ليهين حرير أي كحريران ريكور أي كحريران ها مروان صدح ويل بوادنتين وحي ليهين حرير أي كحريران أو أي سكو وريستان أو تراجيد أو كحريران لكن دليران الصوماليات وإسكفو جيان وحي نكون مشغول سيهين أما بالتوك أما سناب شات marka arintaasna loo ma baahna waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee truck driverada ee Mareykanku in ay samaystaan aalad ku xidhan baabuurtooda oo ay ku xidhiiraan iyagoo dhan mid kasta meeshu marayo iyo meeshu wax ka dhacaan la iska warhayo oo la isla socdo arintaas loo baahan yahay maaha in laga fujiyo dadka cadaanka oo iska warhayaan gobolada la marayo qaar ba aad ogtiin xaaladoodu say u xun tahay marka deeqgeesood waxa dilay nimanka cunsuriyiinta ahaa marka insha Allah bidni Allah kariim uu nagu soo noqon doona walaalkeen saddexla khadar waxaan rajaynaynaa inuu inoo keeno ayaan le cawad wali lama cadaynin deegaanada ka soo jeedaan laakiin Soomaali bay ahaayeen muhiimad ma ahayn in maanta aynu qabiilkooda aynu raadino waa run qabiilka waa la isku aqoonsadaa waana la soo ogaan doonaa nin walba qabiil buu ka dhashay insha Allah bidni Allah kariim laakiin bal wiilkan inuu sugan haduu Ilaahay yiraahdo uu ku maqan yahay ay saddexle marka aad baan ugu xumahay geeridaas dhacday wiilasha Soomaaliyeed Allah u naxariisto hal iska warhayo hana la taxadaro waa u jeedaan xaaladii meesha maraso waa maqlaysan wiilkan wuxuu inoo sheegay gaaraha filsankaaba inaad gaariga dhexdiisa lagu dilay nin baa u soo galay buu yiri ka bacdina xabad buu ku furay intuu daaqadii furay baa xabad ku furay oo uu dilay marka insha Allah bidnillahi kariim bal waynu suganaa haduu Ilaahay yiraahdo waynu suganaa saddexle haduu Ilaahay yiraahdo run ahaantii waa arrin aad iyo aad looga murugoodo waana arrin aad looga naxo dhalinyarada Soomaaliyeed ee businesskaas ku jiro waa inaad iska warhaysaan oo isku xidhnaataan waa inaad isku xidhnaataan kali socodkan waa inaad joojisaan waxa weeyaan nin waliba meeshu marayo mid u dhow waa in la iska warhayo dadka sida uu wiilku noo sheegay
dadka cadaanka waxay leeyihiin meel ay ku xidhiiraan oo record ba ugu xidhan meeshii dhib ka dhaco sheegayo dhaaya halkaas dhibkaas ka dhacay laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed mid snapchat ku jira iyo mid baalto ku jira ay ku mashquulsan yihiin arintan looma baahna riski baa lagu jira waxaan xaaladan waa ogtiin meesha maraso iyo say xun tahay marka insha Allah bidnillah kalim bar waxaan ku celinayaa saddexle halo meesha saddexle ma wiilkii waa iga qaban waayay saaxiib waa iga qaban waayay malaw hurdaaban u maleynaya mooy waan wacay laba jeer okay newska Wisconsin ma lagu soo qoray arinta wallahi ma eegin taas wallahi ma eegin okay don't worry news kan ka baarna haddii aad aragtid wax magacyadii ama sawirradii ay soo gudbay insha Allah bidnillah karim haye walaalkay haye saaxiib aad baa u mahadsantahay walaal adigana Allah ku xafido de bal islaaliye ilaah baa wax ilaaliye aamin wana wala fiican waxa tahay dhalinyarada walaalihii iyo dadkiisa Soomaaliya u gurmanaya tafriid baata wallahi Allah ku asturayna waa waajib saaran shukran ala alwaajib haye walaalkay Allah ku xafido walaal gacali jazakumullah khair okay dhalinyarada Soomaaliyeed ee taraag daraafarada ah iska war haya samaysta meel aad ku xiriidhaan marka aad shaqada ku jirtaan nin walba recordkiisu haw daarnaado aaladaas ugu xidhan dadka cadaanka ku xidha gawaadhideena ka u dhow ka meel riski maray mid kale u dhow haduu gaariga ka xumaado hadoon oo caawiyo hana la iska war hayo xaaladda waa u jeedaan meesha marayso hana la is ilaaliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ilaaliyo laakiin taxadar ayaa loo baahan yahay rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa dhammaan Soomaalida meel kasta joogaan ilaahay inuu insha Allah bidnillah kareem laakiin good news bi noo sheegay saddexle walaalkan saddexle waxa uu yiri wiilka wixii dilay wiilasha wixii dilay mid kamida gacanta ayaa lagu dhigay okay ana ku soo diraya wiilasha mid kamida qofkii dilay kuwii dilay gacanta ayaa lagu dhigay booliska qabtay insha Allah cadaalad buu heli doonaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo wiilasha walaaladeena ee dhintay inta kalena ha loo duceeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibka haydin ka wada qabto wiilasha Soomaaliyeed meel walba joogtaan ee shaqadaas ku jira riskiga maraya insha Allah bidnillah kan hana la is ilaaliyo haduu ilaahay yiraahdo aad baan dhamaantiin idin salaamaya aad baan idin salaamaya hal iska war hayo marba update-ka wixii soo kordha hal is siiyo hana la iska war qabo dhalinyarada Soomaaliyeed mar kale waxaan ku guubaabinayaa ee truck driver-rada mar kale waxaan idinku guubaabinayaa inaad iska war haysaan samaysataan aalad aad ku xiriidhaan dhamaantiin oo iska war haysaan oo mid waliba ka kale ee meel ku dhibaataysan haduu u dhow yahay oo u gurmado oo u gaaro ama uu yiraahdo ninkii hebel ayaa halka ku dhibaataysan yaa u dhow yaa ag jooga la iska war hayo marka waxaan kale idinku boorinayaa in aad joogsataan maanta oo 18 berito oo 19 iyo saad dambe oo 20 oo ay dhacso dhaartii madaxweynaha inta xaaladdu kala dagaso waa inaad joogsataan oo aad istaagtaan mid waliba meeshuu jooga iska dhig gaariga halkii kugu seefsanna aad waliba ha laga dheeraado gobolada ay ku badan yihiin dadkan cunsuriyiinta aad baan dhamaantiin idin salaamaya ilaahay idin karaameeyo dhibaatana Allah inaga wada qabto dhamaantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh